بسم الله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم. sida qoraalka ka aragtaan waa su-aalihii jawaaba oo aniga soo diyaariyey. wax liisoo su-aaliyey kuma jiraan. waa su-aalihii jawaabo guud ahaan anigaan iska soo diyaariyey. insha allah waxaa dib ugu soo noqonaynaa qaybteena facebooka. hay canaaninina wixii canaana dib u dhiga. lambarka koowaad, qofka hadduu ku riyoodo jikada. su-aashan waxay ahayd su-aal beri hore gabaraan aniga wax isku lahay soo su-aashay. marka tiyan soo xasuusta oo aan idinka faa'iideeyo. jikadaada haddaa riyo ku aragtid, jikada waxaa muhiim ah qaabkaad uga aragtay. le-anna jikadaada waxay tilmaamaysaa arsaaqada gurigaaga. jikada mase kushiinka saa u taqaaneen. jikada waa meesha kaliya arsaaqada cuntada loogu sameeyo xaafadda. marka jikada oo dhibaatooyin aa ku arkaysid maaha arrimo wanaagsan. jikada aa ku arkaysid iyadoo gubanayso kale, jikadii oo baahiya abaara waxba yaalin, jikadii oo maxayd bahalo ku jiro sida jiir iyo waxyaabaha iyo baranbare iyo inta badan waxay tilmaami kartaa il bini aadan iyo qof arsaaqadaada xasiday, noloshaada xasiday. wallaahu yaclam. laakiin hadday jikada ahayd mid muriixa, wanaagsan, weyneed, quruxsaneed, nadiifsaneed, oo wax walba markaas niidaada kusoo dhacaya yaalay, waa arsaaqad badan iyo kheyr badan. khaasatan xagga maadiyan, arsaaqada maadaama ay badan tahay, waxaan ka wadaa dhinaca maadiyan, nolosha maalmeedka caadiga ah mise cuntadii waxyaabaha manaafacaadka ah, inuu rabbi kuu siyaadinay qaab wanaagsan oo xoolo xalaal ah rabbi kuuga arsaaqay. haddaa tahay qof shaqaystay, haddaa tahay qof caadi guriska joogaba, xoolo xalaal ah inuu rabbi kuuga arsaaqayo, noloshaadana noqonayso nolol wanaagsan. waxaa weeye hadday tahay jikada mid adigoo cunto ku karinayo aad ku faraxsan tahay, cuntadii macaaneed, jawigeeda deganaa. marka jikada inta badanba labadaas noocay tilmaamaysaa. noocaas koowaad oo ah inuu xasad jiro, noloshaada hadday wanaagsaneed oo ilaahay qof xoolo siiya aad tahay, inta badanba waxaa wanaagsan inaa sadaqada lagu dadaalo. qofka ku yimaadi oo kale asoo gaajaysan inaadan dirin, inaa wixii yara ah karsatay isla qaybsataa. walaa iska wanaagsantaa midaan. maamooyinka soomaalida waxay dhahaan calool gacan lama gaaro. su-aasha xigta waxay tahay, haddaad ku riyootid adigoo su-aal ka jawaabayo, yacni mise imtixaan adigoo lagu imtixaanayo, imtixaanka si sahlan ugu jawaabayo, ficlan waxay tilmaamaysaa u dhawaasho rabbi. waxay ahayd arrimo kuu hagaagsan. haddii adi cakiskeeda aragtid, imtixaanka inuu kuuga adag yahay, aana ku jawaabi karin, rubamaa nolosha adduunka, yacni nolosha waqti xaadirka ah nolosha ay tahay mid kuuga adag. arrimo badan inaa xal u la-daa way noqon kartaa. mideed kale way noqon kartaa inaa cibaadada xaggeeda aad waajibkaaga sidii la rabi ah wax ugu soo bixin. wallaahu yaclam. nambarka 3 waa muhiim arrintaa, le-ano dad badan ayaa ku riyooda. yacni waxaa dhihi karnaa 95% way ku riyoodaa. riyooyinkan yacni way badan yihiin. sababtoo ahna waqti xaadirka anagaa noolnahay waa arrimo aad soo noqda fil ardal xaali, yacni oo ah nolosheena maalmeedka. riyadan oo kale way qusaysaa. riyadan waxaa weeye adoo qaaban inaa riyo ku aragtid. okay, waxaad is leedahay maxaa iska galay adoo qaaban oo riyo ku aragtay iyo nolosha hadda aan maanta ku noolnahay. le-anna waxaa ka wadaa waxay turjumaysa adoo qaaban, waxay turjumaysaa ficlan sirahaagii oo laga sheekeynayo, waxyaabo kuu qarsanaayo banaanku soo baxayo. sababtay waqti xaadirkan u qusaysaa waxay tahay, waqtigan wuxuu noqday waqti oo xaalidan internetka xoog loo isticmaalo. qofaad la sheekeysanaysaa, hadala adi ku qaasahayo, sirahaya kaa soo baxayo. matalan whatsappkana maanta dhan iskaga sheekeysanaysaa, wixii beri lagaasii gudbinaa. mise sawiraad qof la galaysaa, sawirka yacni ma asturnidoo kale sawirkaa laga faafinaa. waad aragtaan baade waxaa ka dhaca social media. marka sidaa darteeda riyooyinkan oo kale dadka badanaaba way arkaan. sababtay arkaan waxaa waye digniin rabbi noogu digay dhibaatooyinka nagu food leedahay, waayo casriga hadda aan ku jirno. sidaa darteeda inta badanaa leeyahay riyadan way arkaan. sababtaanu leeyahay waxay tahay inta badan dadka riyadan way arkaan, adoo qaaban badanaa way arkaan. adoo qaabanna badanaa waxay tilmaamaysaa micnooyin yaryar oo kala gaagaabo soo raacay buu jira, laakiin micnada ugu weyn
waxaa weeye in sirahaaga asraartaada sawirkaaga ahaada waxyaabo kuu qarsanaa banaanka usoo baxaya mise dad rabo xumaantaada yacni kaa sheekeynayo ceebahaaga ka sheekeynayo xataa haddaadan ceeb lahayn yacni kula raadinayo sumcad xumo wallahu yaclam. nambarka afaraad waxaa weeye adoo gaari wado waditaanka gaariga dad badan waxay u arkayaan yacni rii iska normaala laakiin waa rii aada wanaagsan. wax badan janaalkii hore wax badan waa kasoo hadlay haddaad xasuusataan dadkii ila joogay. waxay tilmaamaysaa nolosha inay si saxankuuga yacni ku socoto iyo weliba inaad xakameyn kartid noloshaada iyo dadka kaa agdhidhow matala haddaa hooyo tahay caruur leedahay haddaa aabo tahay caruur leedahay xaas leedahay waxyaabahaas oo kale inaad noloshaada adiga gurigaaga xakameyn kartid oo maxay ahayd hogaankana kuu hagaagsan yahay. waa haddii adiga gaariga si fiican u waday si saxan ahayd waxba aana kaa qaldanin. maka hadlaynayaa shirka baabuurka shirka gaariga iyo maxay ahayd dhibaatooyinka ka dhaca okay taas rii wanaagsan maaha wallahu yaclam. nambarkan shanaad nambarkaneyti dad badan anaga nooga mid ah markay rii ku arkaan way ku farxaan. fasirka riidiisana ficlan saasoo tilmaamaya inuu yacni farxad yahay. nambarkan wuxuu yahay haddaa koryootid adigoo lacag lagu siinayo mise lacagaa helaysid taasna in badan kanaalkii hore kasoo hadlay. waxay tilmaamaysaa rabbi inuu arrimaha kuu yasirayo iyo deemankaa gudmaayo albaabyo kaa xidhnaayo kuu furfurmaayo yacni arrimo iskuu kaa guntanaa oo laakiin rabbi kuu furfuraayo wallahu yaclam. yacni aragtada lacag adoo lagu siinayo mise aad dhulka ka helaysid mise waxay doonta baahad adoo lacag iska haystoon riida dhexdii waxaa aragtay lacagaad haysataa waa rii fiican haddaynan ahayn axaadiis nafsi ah waa haddii adiga adoo lacag ka fikiraya mise ka mashquulsanaad ku seexanin oo markaa riida lacag ku arkin. nambarka xigo waxay u dhadhowdahay riidii hadda qofka koriyooda lacag liano riidaana qofka koriyooda caadi ahaan riida dhexdeedan wuu ku farxayaa fasirkeedan way farax gelinaysaa taasoo ah dahabka qofka koriyooda dahab waa qof dumar yaa muhiimada dahabka ma qosaysa rag iyo dumarba waa dumaro keliya. ragga mararka qaar ay dahabku fiicantahay way jirtaa laakiin inta badanba lacagta rag iyo dumar hadday rii ku arkaan waa isku mid fasirkeeda laakiin dahabka waxyar way ka kala duwan yihiin. dahabka dumarka aragtida dahabka aad ay ugu fiican tahay waxay tilmaamaysaa arsaaq awlaad taysiir al amuur inuu ilaahay arrimaha uu saqiraayo oo u yasiraayo oo hagaagayaan. waxay kaloo tilmaamaysaa aragtida dahabka waxay kaloo tilmaamaysaa xoolo xalaal ah wallahu yaclam. nambarka xiga waa asigana nambar kaa faraxsiinaya haddaa rii ku aragtid. nambarka waxaa weeye haddaa koryootid adigoo ilmeynaya riida dhexdeeda taa waxay tilmaamaysaa faraj dhow iyo farxad soo socota weliba maxay ahayd khaasatan riidan oo kale waxay aada ugu wanaagsan tahay qofka murugaysan qofka ciriiriida culeysada dareemay iyo weliba qofka la dulmiyey. waxay tilmaamaysaa nasal iyo guuleysi. qaybta facebook insha allah waa soo noqon doonaa. gabadh ayaa mar walba waxay iisoo qortaay riyooyinka sideed ku fasirtaa kitaabyaan aqriyaa ayaan ku fasiraa mihi mufasirad kitaabyaan aqriyaa insha allah inaa su-aashaa jawaabteeda heshaa rajeynaya. haddaad xasuusataan janankii hore maxay ahayd waxaa ila shaqeyn jirtay gabar la dhihi jiray uma abdiraxmaan. gabadhaasiti wax badan ayaan ka bartay fasirka riyada waa gabadhii igu dhiirigelisay oo su-aalaha iga jawaabi jirtay oo gabar waxay maamo weynay ahayd laakiin fasirka riyada si fiican u taqaano carabiyada. gabadhaasiti markaa fasirka riyada aan ku cusbaa riwal baan koriyooda aan su-aal waxay dhihi jirtay haraa raadinin habuu weydiina riyada fasirkeeda. waxay dhihi jirtay haddaa wax ku faraxdid ay tahay okay kheyr niyeyso haddii riya xun tahayna sharteeda ilaahay ka magan galo liano waxay dhihi jirtay kitaabka riyada maaha sida kitaab qur-aanka oo kale. marka maxay ahayd markii dambe aan fasirka riyada si fiican u gudagalay waan fahmay. hadda waxaan aaminsanahay in riyada in xoog loogu weyneeyay ayna muhiim ahayn liano nabigeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku dardaarmi jiray in riyada hadday wanaagsan tahay kheyr niyeysatid tan xunna maxaad ilaahay ka magan gashid.
wallahu yaclam. halkaasaan kusoo kobaya laag noo saara noona sheergareeya.